waxaan diidaynaa wixii la soo malookeeyey oo kambala looga dhawaaqay ma doonayno annagu ma doonayno Soomaalidu uma baahna inay ku shirto Nairobi iyo Addis Ababa waxaad ogtay Nairobi iyo Addis Ababa inay qolana 6 milyan ay gumaysato qolana 1 milyan ay gumaysato marka ninka doonaya inuu wasiirka ka soo qaato madaxweynena ka soo qaato shirkana lagu qabto labada meelood hadda aan sheegayno wax cunto haya ma dadka Soomaalida aan yeelmay dib u yeelmayaan waxaad garanaysaan 60kii iyo 4tii dagaalkii dhacay dawladda urdanka ahayd Soomaali u dhalatay oo madaxda ka ahaa ninka la yiraahdo Aadan Cabdulla Cusmaan Allahu naxariistay iyo Cabdirashiid Ali Sharmaake asagana Allahu naxariistay ciidankan haysan 5 kun ma dhamaan markii booliska lagu daro 2 kun iyo waxa ahayd 3 kun ciidankoodana libaaxa Afrika la oran jiray calaamada halkan ku dhisay dagaalkii la isla galay waxa lagu shubay Addis Ababa waxaa isku duubnaa oo midaysnaa oo hal wada ahaa shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdiisa cid been kartaan ma jirto aynagu haddaynu isku tiirsanahay oo aan midaysanahay oo aanu aragno quwadeeda iyo Soomaalinimada iyo Islaamnimada iyo waxa annagu aanu nahay عدوي كفارت وكالمين هذا هالكلام جونا هذا إيش صقرت أورو إن فرترته إيش هو سمار سما على مدى الروي قوي ده صقرته وكنت فرته إنه الوجه وحي يقول ده دول حاجة كنت شنتي أبيس هذا أنا وهذا الناس مال كل مني سو كم بلاي تشر وقفته هو أنا والدولة هي وعاونها هي بشر نوع منها مركز أنا قال لي بدها عرب وتجد كتجمعش dalka marka waa la qaatay waa loo tashaday weey waa dal la qaatay oo loo tashaday oo meel lagu soo ogaaday weey nimankan marka yar yarka oo siiqeenood yurada soo raacay oo naftooda inay biimeeyaan damcay iyo shacabka Soomaaliyeed ma garab istaagnaa مسؤولنا أمام فأنا نقرب استغنوا أساسا قمنا نوم نمكن نقول يبنا ولا دلي يجونا تشتك هيا وعلوه وجهه قدم كور رأيو حلا الله يا دولتكم بالكركة ومدحك يهي أنا فرماجو أنا أسأل أذكر الله نقيني لكن أسأل ما كان ما يعاس أذكر لها شوف أنا نقيني لكن ويلك ما كان لكن حقيقة فعلا أنت يراي وحكبني وودك كسر لابتي أما ورئيس وزراء نقضي قيمها بدن وكموجي إن ما ملكا مركز ومدلكا أيها وحنا ليه قوش وقوده ماش هذا الجو رئيس وزراء أساسا ليه وإن برلمان كان ليه برلمان وحد وقت عضا لقو قلا عض وعض لقو قلا برلمان كساد وقا من نقطه ومدى إنه عض كسيان وانقرانينا هم وانقرانيا إن هذا عض كقلين واحد كقشة وأكتاي إلهين وأقيه أنا أقول ابنه حسيا الشيء قبل بهالشو تاجن تبدأ كأجرين عكراء برلمانكو وغلط كبح نوان كدت كمينة ضبط لي كان حالان لا يهي وكل يلنا يا والشاور يرادو حالان إذا لا يهي وقت جيني وقت ماضي قبل تاجنتين وضن كميلك هاجم بنانا كبح وعليها ري شعب الصوماليات وقاد مودو مانتي إني بدان ير وهلا أهلين روك كدوه هلا حولو وفرحان ضدكم وفرحان بيرون وفرحان يجي ده يحيوان كله ما أنت وعنكو فرحسن هاي ضد وحقري كرا أو أركي إن خلص 20 سنة لجو هيي لو افتيمي هنقولنا ماشي ناكل نقولنا أنا أقول هو اللي سبور كرينا وأنا إدين إيماننا وأنا قرب تاجنا هين يهو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
waxaan intooda badan ka maqlahayaa shirkii ka soo baxay Kampala inay gidda cambaareen hayaan oo ay necab yihiin anigu horta aad baan ugu faraxsanay qof ahaan waxaan ugu faraxsanahay waa idin sheegaya shirkaas wuxuu ahaa isku duubihii ummadda Soomaaliyeed buu ahaa ma wahayn mid ummadda Soomaaliyeed kala burburinaya ma ahayna wuxuu ahaa mid ummadda Soomaaliyeed isku duubayo ahaa sidaas in loo gartaa fiican sababtoo ah anigu waxyaalaha anteeriya shalayta iyo doraad yaan ku arkayay internetyada iyo ku arkayay TV-yada ku arkayay wax caadi ma ahayn waxaan rabaa horta inaan sheego eray runtii waxaan isku nimaadnaa markay wax dhacaan waxayse aad u qurux badan tahay in isku imaado intayna wax dhicin sababtoo ah markay wax dhacaan waa uun ka daba gaaraysaa wixii aad rabtaa inaad kula qabsatid wixii laakiinse haddii aad maxaa la dhahaa la isku yimaado oo la tashto oo istiraatiijiye la dhisto waxaanoo kale maba dhicinba runtii mayna dhicin waxaan xasuusanaa 2006 inta waxaan ka taageerinay ninka maanta mas'uulkiisu ka maqan yahay annagoo u arkayna wanaag maantayna waa fujinay waxaan u aragnaa wanaag inayna ahayn in Kampala intii lagu soo shiro oo taariikh ahaan la yaqaano 74 dowladdii kacaanka ee Soomaaliyada ahayd iyo Tanzania dhex gashay taariikhdaas ayaan duminay markii intii lagu shiray Kampala loo soo diray qodobo ay ka mid yihiin warwaa isdisheen waa ognahay laakiin doqomaadkiin doqomo waxaa ku tihiin dastuurkii ilaa naloo sheegaya carta dastuura la sameynaa oo dastuur ku meel gaaraa jiro baa waxaa la yidhi dastuurkiina waxba kama jiro qodobka 10aad ka mid ahayd in baarlamaanku uu motion keeni karo wax kama hadli karo marka horta kuwa aan leenahay baarlamaan ma aha runtii waa wada ognahay laakiin waxaan leenahay maanta shacabka Soomaalida ka mid yihiin haddan qadaan oo hadda reemaan xataa inay dhidhi karaan waxaan kaloo rabaa inaan sheego dowladdii lagu tilmaamay geeska Afrika waqtiyadan dambe ay ugu xoog badan tahay Ethiopia inta waa kala dagaalamay aad baan uga dagaalamay inta ilaahayna waa nagu guuleysiyay inay xamar ka baxdo marka dagaalkii haddii markasta aad dagaalantid oo jiifatid hadda raggii kaama maqna waa markasta way soo socdaan marka waxaan leeyahay aniga nooyo Soomaaliya inta isaga imaanayso Soomaali midoobay aniga dalkaasi runtii fursado isoo siiyay Ilaah og dad badan baan ogeyn macnaha ama aan ka warqabin generationka waayadan dambe dhashay aniga waxaan ahaa dadka wax ku bartay jaamacad uga soo baxay scholarship ka soo helay qiimo ka duwan dadka qaarkood ayuu ila leeyahay marka waxaan leeyahay walaalayaal waxaad hibo ku leedahay dhulkaaga hooy ay Soomaali war u tiri marka dhulkaasi waana wada deeqaa maanta waxaa ii muuqatay inaan jabino qodobkii ahaa 4.5 kin lagu qasbay marka aan isku imaano waddankaasi waa waddanaan leenahay waa waddanaan wax ka bedeli karna waa bedeli karnaa alxamdulilah ugu horreeyay waxaan tacsiid tiiraanyada u dirahayaa wasiirkii arrimaha gudaha Cabdishakuur Xashan Faarax oo ka geeriyooday qaranka Soomaaliyeed iyo qoyskaba ilaahay waxaanu ka baryaynaa jannadii firdawsaheed inuu ka waraabiyo waxaan tacsiin inta la u sii dirahayaa qoyskiisii iyo qarankii iyo qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan ilaahay ka baryahayaa mid asagoo kaleeta oo metela ummadda Soomaaliyeed dalka iyo diintana u horseeda dadnimadii uu asagu lahaa oo kale ilaahay inuu noogu bedelo booskii uu ka baxay waxaan kale oo baaq u dirahayaa maxamed cabdullaahi oo aan leeyahay eedo maanta meel maran ayay taagantaa Soomaaliya habeen iyo maalinna isuma eka muqdisho maanta maalin bay u eg tahay shalayna madow bay ahayd ha kaga tagin maanta meesha ay tahay ee ka sii wad halkaaga kana sii hinqi meesha aad dhowrka bilood gaarsiisay waan kugu garab taaganahay hiil iyo hooba da kasta oo aanu leenahay haddaan qurbaha jidno iyo haddii aanu gudaha joogno
sii wad hana uga tegin hana kaga baqanin naftu maalin bay tegaysaa beeri qaatayaasha 20 sano dhiiga xinjirta dadka ku lacagaysto ku dadoobay oo magacaysa lahaan jirin ku yeeshay dahowga caroon geesinimadii shalay meel laga shaqaysanayo oo nolol taalo oo nabadgelyo taalo aad uga soo gurmatay markaad aragtay dalkaaga iyo dadkaaga iyo diintaaniba inay ciriiri galeen ha uga tegin maanta ayaan ku leeyahay saacadaada ayaad sugaysaa aadna dhiman doontaa insha Allah bil kariim laakiin codsi laaban oo cod dheer waxaan kugu leenahay eedo ha nooga tegin meesha ay maanta taalo nin ragii kagama tago hashiisa oo dhaba taalo kagama tago ee uu ka kiciyaa siday uga ruuqaansan lahayd ayuu si walba dhan kabaala ugu kiciyaa maanta Soomaaliya kabaala ku kicin bay u baahan tahay isu keenis bay u baahan tahay qoys uma baahna qabiil uma baahna kala fogeyn iyo 15 calan ee baatiga laga tolay uma ay baahna calankii ku jirahay horta xabaal u galay adiguna kaga tagin maanta taariikhda magac baad uga tagi doontaa insha Allah bil kariim haddaad dhibatana guul haddaad nooshahayna guul maxamed cabdullaahi anoo ku hadlahayo codka dumarka Soomaaliyeed ee ku nool Norway waxaan ka codsanayaa dhammaan qurbaha inta joogto dhan aan filayo inay igu wada cod yihiin igu wada aragti yihiin Soomaaliya meesha ay maanta tahay la uga tagin عناصرta dhiiga dadka ku xinjireysatay iyo kuwa indhaha xidhay inta iska furtay maraqa ee adiga kursiga kula wadaagaysa iyo inta kale ee kabalada u soo xiratay inayna burburiso hanooga tagin ayaan ku leeyahay maanta wadankii xabaashiisa ayaanu u soo soconaa waa meeshii lagu xabaali lahaa ee damacaana ilka noo si diyaari ayaan ku leeyahay adduunyo aakhirana Allah ku anfaco insha Allah kariim gabagabeeyay xarunta islaamiga iyo dhaqanka magaalada tan Norway waxa uu ahaa kulan taageero ahaa dhowr waxyaaboodna looga wada hadlay waxa kamid ahaa dadkii isugu yimaaday kamid ahaa qaybaha kala duwan ee bulshada waxa ay ka wada hadleen arrimo far badan oo guud ahaan waxa la iska arinsaday xaaladda uu marayo wadanka sidoo kale inta waxa taageero halkaas loogu fidiyay xukuumadda uu hogaaminayay ra'iisul wasaare Farmaajo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyada oo dadweynaha ay ka codsadeen ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda inaysan aqbalin iscasilaada ama inay istiqaaladooda wareejiyaan loo soo sheegay sidoo kale inta waxa dhamaan loo tacsiyay geeridii naxdinta lahayd ee falka cadawtooy lagu dilay Allah u naxariistay wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga qaranka mudane Cabdishakuur oo ahaa wasiirka ammaanka qaranka jawiga oo ahaa mid aad u kacsan oo ay ka soo qayb galeen dad aad u fara badan oo ka kala socda qaybaha bulshada waxa kamid ah dadkii noo suurta gashay inaan balka la dhax qaadno mikrofoonka oo aan wareysi ka qaadnay mid kamid ah siyaasiyiinta Soomaalida ee degan wadanka Norway magaciisa waa علي عبد الله حسن علي جناي كان مد أها حلبانا دي حلكو ذا كعزلي إسلا دولدن علي ما أنتوا حد كيف قشي شركة محوها درين كشخصي يكو أدن كقبل الشركة جودهن بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد درين كي قاعد ياد أيو كعسين هرونتي ودرين كحرن درين كأمد الصوماليات أي كقبطو حالة دجود ku sugan yahay wadankeena iyo dhibaatada iyo dagaalka iyo mushkiladaha dalka haysta qaasatan faragelinta iyo maaragtay nala ku hayo dagaalka joogtada ah ee indhaha looga ridayo wadanka rajadiisa oo ifbaxda ama iftiinkii ummadda Soomaaliyeed u dhashaba in la ridayo cadow ballaaran oo aan gabasho lahayn oo mid indhaha soo duubta oo gafuurka duubta iyo mid beesha caalamka isku magacaaba intaba ay wadaan إن شاء الله ومدنا وحن كرجينا إن إلهي مدايو درين كيجا وكاس وأنا كعسنا هاي جيريدي قدام بيس مسؤول كي شرفت لها قرن كها عندها أمد الصوماليات كم إذا هاي قدام بي لو بيكسدي قرح معركة اللي يقول بيكسدي فوش إحنا دجال كفولين ماذا دين تكفوق معركة إسلام ماذا كفوق مد ديجا الغبلنا مد إسلام كأسوماليات ديجا الغبلنا إنسانيو مدن اللي جسوا هي إلا إيمانتي دولدان شريف مدحوينها كهلا صورس إلا مانتدن مسؤولين تمن Soomaaliya saa loo beegsanay marka dareenkayga midaan ku soo koobi kara halkan maaha dareenka ummadda Soomaaliya maanta meesha isugu keenay waa kaas ayuu ka mid yahay dareenkayga waxaan rajaynayaa insha Allah ummadda Soomaaliyeed dareenkooda inuu sidaas iyo si ka wanaagsan u yahay waa hagaag cali hadii aan u soo degnaa xukuumadda ra'iisul wasaaraha ama hadalka ra'iisul wasaaraha sida aan ku maqlaynay xukuumaddiisa waxa ay
إعلاميسي أما جوان كوجارين إني سن أقبلين استقالة لوسو جدي أما إن حركة كدجان وحنا كميد أرنتاسنا لو ريجي برلمان كو أي جوان كجاران وحنا كميد حلبان دي برلمان كسوماليا حلكو إسكعزلي محيط هاي إسلادة هاي محيط كردينيسا إن أرنتان لو ريجي إن جوان كجاران برلمان كو مصلقي أبا إن برلمان كو قرب استاجان شعبي يعني فكر كأكو أدني أقونت أولاد هاي إن حركة برلمان كو marka hore ra'iisul wasaaraha iyo kabinetkiisa dawladda way ku mahadsan yihiin waana dad wax garanaya wax kala garanaya raba inay wax hagaagaan sababtoo ah system ayay ku joogaan oo ay ku shaqeynayeen systemkii hadii la damcay in la kala diro in dariiqa sax ah loo marano waa ku amaanan yihiin aqoontooda iyo aqligooda iyo rabbi oo waafajiyay ayaan u sababa marka in baarlamaanka arrinta lagu celiyo waa wax muhiim ah baarlamaanka sida la socotaan waxay isugu jiraan dad wax kala garanaya iyo dad waxba kala garanayn dad wax fahamsan iyo dad waxba fahamsanayn waxay isugu jiraan dad siyaasiyiin ah oo og dhibaatada iyo dagaalka hadda nagu jira mushkiladda hadda socota dad ma aragtay diidan oo muwaadiniin oo sax ah dad waxa ku jira munaafiqiin ah oo aanan kala jeclayn jiritaanka dalka sidaa darteed bacdama dalka la isku jiro munaafiq oo meel walba jiro haddana procedure-ka ama systemka ama institution-ka noo yaala ee kumeel gaarka ah maqasheen wuxuu tilmaamayaa in wixii loo baahdo loo celiyo marjaca bacdama aan xildhibaanada iska casilay duruufihii iyo mushkiladaha isaga casilayeen ay ahayd in muxuu ahaa waxa hadda aanan shaqayn karin ummadda waxba u qaban karin aad iyo aad u mahadsan tahay sidoo kale inta waxa kamid ah dadkii aan kula kulanay mid kamid ah qaybqaatayaasha dareenkaagu muxuu yahay ku aadan bismillaah anoo kamid ah qaybqaatayaasha dadka Soomaaliyeed ee isugu yimid halkan magaciisuna yahay Diiriye Maxamed Goore kana tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed degan wadanka Norway dareenkaygu aad iyo aad u sareeya waxaan dareemayaa inay badbaaday midnimadii ummaddu isla markaana la doonayo in lagu taageero in lagu diido waxyaabaha ka soo baxay Kampala oo ahayd wadanka meel ka baxsan in la doonayo masiirka ummadda in lagu soo go'aamiyo waxaan kala taageersanahay tiimka wadajirka ah oo ra'iisul wasaare Farmaajo uu weyn yahay inay masiirka ummadda iyagu go'aamiyaan waxaan kala taageersanahay dadka Soomaaliyeed inay iyagu masiirkooda leeyihiin aan dad kale wax u meerin karin ayna diidi karaan wixii iyaga aan u qalmin kula tahay baarlamaanka inuu ansixin doono oo diidi doono in macnaha uu isaasilo baarlamaanka waxaan ka rajeynayaa fariin halkan uga diraynaa inay rabitaanka ummadda ay yeelaan baarlamaanka Kampala lagama xukumo ummadda Soomaaliyeed masiirkeeda ay ku fadhiyaan kuraasta waana taariikhdeen u gali doonaan insha Allah muujinayeen inay aad uga soo horjeedaan wararkii dhawaanta soo baxay ahaa in ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya uu iscasilo taasi ayaan wax ka weydiiyay mid ka mid ah hoggaanka dalka Norway ururka Soomaaliyeed fikradiisu waxa ay tahay waxa ay dadka reer Soomaaliya ay qabaan Norway ku nool magacayga waxa la yiraahdaa Idris Ilma Abuukar waxaan ahay dadweynaha Soomaalida ku nool wadanka Norway sida ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtay og tahayba bari waxa bilowday ummadda Soomaaliyeed waxay u istaagtay nolosheeda ayatiinkeeda iyo midnimadeeda Soomaaliya waxay labadii kulaatanka sano ugu dambeeyay wadan loo taliyo oo dibadda looga taliyo oo madaxweyne kasta ama Kenya Ethiopia ama Djibouti loogu soo asaaso maanta waxaan helnay ra'iisul wasaare gartay inuu diido waxyaabaha dibadda loogu soo go'aamiyo هذا الكيب